بسم الله الرحمن الرحيم وتريننج with solar groups معلنك عبد الناصر اسماعيل ايميل كواسيد عدد هيت info@solargroups.com ويب سايت كنا solargroups.com عاو waxaan ku baranaynaa how to create a super keygen waa key generator ayaa laga soo gaabiyey kambaniyada aad ay u isticmaalaan sababtoo ah waxay haystaan serial ama nambarada softwareka lagu furo oo aad u fara badan ayay haystaan marka meesha ay ku kaydsadaan kambaniyo badanna commercial ayay ka sameeyaan ama waa iibiyaan marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan keygen waa softwareda la soo xado ayaa la soo geliyaa waxaas marka kuwaas dabcan dad u isticmaala waa jiraan laakiin majority inta badan kambaniyadu waxay u isticmaalaan in kiyada loo gudbiyo ama uu hayo ninka system administratorka ah oo marka uu mar alla marka la doono loogu yimaado ka waran haddii kambaniga uu iibsado 10,000 oo software kala duwan key walba meel lagu hayn karo marka waxaa muhiim ah in hal meel la isugu geeyo marka keygenka sidaas ayaa la yidhahdaa marka waxaan sameynaa super keygen oo lagu shubi karo ilaa iyo dhowr kun oo software key aad doontaan iyagoo aad u kala duwan waxaan isticmaalaynaa Microsoft Visual Basic 2008 oo bilaash ah ama free ah ayaan isticmaalaynaa caawa si aan u sameyno barnaamijkan waxaana download ku samayn kartaa microsoft.com oo sidan ah ayaa google-ka ayaad galaysaa waxaad ku qoraysaa halkan Visual Basic 2008 ay ku qoraysaa wuu kuu soo saarayaa download ayaa leedahay registration isku samee sababtoo ah dhowr bilood ka bacdi wuu xirmaya haddii aan registration isku samayn inta kalena free ayuu ku yahay Visual Studio hore u taqaanin kaas waa lagu samayn karaa marka casharka intaan hore u gelin sidii caadada ahayd dadka nagu cusub waxaan leenahay registration isku samee si automatic ahaan lagugu soo diro wixii soo gala ee cusub ama articles ama downloads ama tutorial ah aan kugu soo dirno teeda kale sidii caadada ahayd Facebook waa ku jirnaa waa ku soo dari kartaan YouTube iyo Twitter oo laysku daba raacaa la yiri okay waxaa kaloo aan idiin sheegay asbuucyadii lasoo dhaafay in aan wado dhismaha waqti hore aan waday portal meel aan isugu geynayno software aad u fara badan oo aan sameynayno oo la yiraahdo connected.co.uk website-kan aad ayuu u weyn yahay marka softwaredii iyo serialkii iyo wax walba ayaa mustaqbalka ilaahay hadduu yiraahdo waxaan doonayaa in qof walba username and password on sameeyo software u baahdo uu meesha u kala soo baxo marka hadda dhismihii ayaa ku socda waxaan doonayaa inaan idin tuso dhexdiisa marka waa very simple website software and keys ayaa halkan ku qoran halkan waxaa yaala calanka Soomaaliya iyo calanka Mareykanka oo English iyo Soomaali waa ujeedaan marka hadda wuxuu ku fadhiyaa software and keys waxa dhan waa English haddii aan yiraahdo Soomaali calanka aan taabto software ifrayaal magaca softwareka magaca furaha softwareka wax walba uu ku soo qorayaa ku dar itus macnaheedu maxay tahay tan display haddii af Soomaali ka wanaagsan haysan ii soo sheega marka kaas waa kaas marka softwareka halkan ay ku buuxaan halkana Ajax ahna ayuu dhisan yahay oo uu ku jira oo aad ka arki kartaan ay ku wada buuxaan marka wax walba ay ku jiraan haddii aan 7 kaliya aan raado very sensitive inta qoraal waxa ku soo qormaya uu raadinayaa 7 markaan yiraahdo uu raadiyay wuxuu soo saaray wax la wixii 7 u dhawaa ama isagoo la download leh ama asoo serial leh haddii aad tirahdid a wixii ka bilowda isla markii wixii ay ka bilowdo oo software ah oo jira ayuu ku keenay halahana ujeedaa marka insha Allah mustaqbalku uu shaqeynaya markuu shaqeeyo na waa idin soo socodin doonaa okay casharkeena aan bilowno markan waxaan ku bilaabaynaa sida caadada ahayd in aan furno Microsoft Visual Basic ayaan isticmaalnaa Express Edition oo sidan ayaan isticmaalaynaa marka waxaan sameynaynaa waxaan ku bilaabaynaa file ayaan tagaynaa si aan u sameyno project-kii aan ugu talagalnay la yiraahdo Solar Super Keygen la yiraahdo project-ka ayaan furaynaa name-ka halkan waxaan ku qoraynaa Solar Super capital letter kismada soo dhex geliyay ka waran Keygen oo sidan ah okay ayaan leenahay waxaan noo soo furmaya form sidaan ah oo keygen ayaa noo soo furmaya marka formka boxka asaan halan ayaan ka dhigaynaa markaasaan ka dhigno halkan highlight ka dhigaynaa si aan u magacayno formka halkan oo text hoostan ayaan imaanaynaa waxaad leedahay isla magaci ayaan ku qoraynaa Solar Super Keygen ayaan saan ugu qoraynaa marka ku qortid mar walba ku qor magacaa ku qoro created by Abdinasir Ismail markaasaan yiraahdo waa kana ujeeda Solar Super Keygen created by Abdinasir Ismail halkan ayuu sidaan u yimid waana diyaar dhinacan
qoraalka ugu horeeyay marka inta waxaan u jeedaa in logo ku qoran yahay marka logo iyo xiritaankan waxaan ma doonina sababtoo ah qaarkood inta ay riixayaan waa weynaanay marka labadan ayaan ka saaraynaa kan hore si aan uga saarno waxaan sameynaynaa buttonka kan ayaa meesha saan u riixaysaa hooska ayaa waxaa leedahay show waxaan leenahay iconka waa kan laakiin anaga waxaan doonaynaa icon show icon wuxuu ku fadhiyaa true marka waxaan leenahay false ayaan leenahay ka saar oo ka baxay oo ujeedaa iyo form bodyga kan waa ka bedelinaya isagana sababtoo ah kama helin dadka intooda badan markay sameynayaan styleka oo form waxaa la yidhahdaa form border style ayaa la yidhahdaa kama helin halkan ayuu yaalaa sidaan u fur waxaad tidhaahdaa fix to the window de aa ka baxaysaan ayuu uga baxay aa ujeedaa everything is very smooth iyo waxaa kaloo aan sameynayaa background colorka ah imageka yaala ayaan soo qaadayaa background ayaa halkan ayaa tegaysaa dhinacana waxaad leedahay local source ayuu ku jira import soo dheh waxaan dooranaynaa dark blue ama dark bluegan ayaan dooranaynaa osaana waxaa leedahay okay aa ujeedaa xoogaa qurux ayuu soo yeeshay marka levelkii iyo waxaan kale combo boxkii meelihii keyjinga lagu gelin lahaa ayaa hadda sameynaa insha allah marka waxa ugu horeeya aad tegaysa waa toolbarkan dhinacan bidixda kaa xiga ayaa tegaysa combo box ayaa noogu horeeya marka combo box meelahan ayuu ku dhex jiraa inta badan combo box waa dhuuntaa laakiin waa soo helinaa dhibaato male waa kan waan soo qabanay soo qaad drag and drop dheh si aan u dheere halkan dusha saan u gee xoogaasaan u dheere waxaan kaloon u baahannahay text box ayaan u baahannahay kan 3 xab ayaan u baahanay halkan soo saaro right click dheh copy dheh mar labaad iyo mar saddexaad aan usoo wada saar halkaasaas asoo tiraahid kan kusoo dhawee mar walba marka programkaan loo dhisayo aad ayaa loo soo fududeeyey isla ekaanshaha waxaa la doonayaa program keliya inuu shaqeeyo ma inuu qurux yeesho ayaa la doonayaa haddii kale qof walba wuxuu ku leeyahay ninkan sidaan u maraynayo ma isu yara dhawee kanna highlight mar walba ka dhig geeska gee waa inay isku wada dhawaadaan saan marka waxaan keenay waa combo box iyo text box 3 ayaan keenay marka highlight saan uga dhig gees ka soo qabo formatkan tag center inform horizontal ka dhig dhexda ay yimaadaan waxaan kaloon u baahannahay laba button ayaan u baahannahay kow kan labaad isaga laabo waxba ma badna halkan geeskan sidaan u keen ku dheji buttonada waxay noo noqonayaan magac inaan u sameyno kan wuxuu noqonayaa generate kiiga lagu keenayay marka text buttonka ayaa halkan imaanayaa waxaan leeyahay generate ama kiigii noo soo saar kanna waa kii looga baxayay oo ahaa exitka ahaa isla buttonkii meeshiisii oo texiga ayaa imaanaysa waxaad leedahay exit ama ka bax ayaa leedahay markii ay ku dhammaato waxaa sameynaysay marka halaan aan joogno waxaan u baahannahay waxaan u baahanahay label ayaan u baahanaa halkan ayaan tegaynaa labelka waa a weyn ayaa ku qoran waa kan soo qaadayna halkan ayaan soo dhigaynaa halkan ayaa la doonaya inuu yimaado si magacyada aan u kala sheegno right click dhe copy dhe isagana 2 3 4 ayaan ka dhigaynaa 4 label ayaan u baahannahay halkan dhig isku wada aadi automatically si isku wada soo ma jeedid blue kor ayuu isaga aadaa calaamada buluug ayaa soo korta marka iyagana magac ayaan u yeerinaa highlight ayaa leedahay dusha ayaa tegaysaa halkan ayaa tegaysaa text meesha ku qoran tahay waxaan leenahay softwareki xagga box laga soo saari lahaa kan labaad waxaan leenahay serial oo numberkii companigu uu isticmaalay oo serialka ahaa kan saddexaad waxaan leeyahay magacii softwarada qaarkood magac ayay ku weydiinayaan 2 dhibic dul saar iyo kan ugu dambeeyo aan leenahay marka qaarkood waxay ku weydiinayaan companiga soo iibsaday oo kale ama emailka ama wuxuu noqdoba way ku weydiinayaan kan company sida loo qoro ma saxsan tahay haddaan arkayna hadday sax tahay company waa laga yaabaa inay sax tahay haddii kale idinkaa soo sheegi doona marka halahan sidaan waan u sameynay softwarekii wixii dhan san ayay u qoran yihiin halkan aysaan diyaar ugu yihiin xoogaa keyjinkii wuxuu usoo ekaaday in uu keyjin shaqeynayo usoo ekaada laakiin fari kama qodna faad noole dabcan hadda haddaan yidhahdo dibag aan yidhaahdo waa soo saarayaa aan dhiso softwarekii wax kan waa soo baxay soo keyjina laakiin muxuu tirayaa waxba kuma jiraan marka waxba fari kama qadna faanul calaa kulli xaal marka waxa ugu horreeya hadda aan sameyno waxay tahay waa qoraynaa text serialka ayaan qoraynaa marka qof walba waa sameyn karaa tan aaday u fududahay intimidation idinku sameyn ama yuu idin waabsanin marka la qorayo coding ama scriptka la qorayo aad ayuu simple u yahay marka waxa ugu horreysa sameynaysa waxay tahay generate meesha ku qoran tahay iyo double click ku sameynaysaa baagi ayaa ku furmaya halkan public class ayaan ku sameynaa marka ugu horreysa marka intaan ku sameynin waxaa halkan gelinaynaa waxa la yidhaahdo dim oo saan ah num kan haddaan idiin macnaynayaa as
integer markaan saan u iraahdo waxa u jeedaan in automatically ugu soo saarayo markan macnaha maxay tahay integer kan maxay tahay aniga integer aan iska iraahdaa laakiin waa integer afkigaan qabanaynin waa numbering 36,575 number oo integer kan ah kan wuxuu yahay numkii dabcan markasta programka lagu qori karo number 1 number 2 number 3 number 4 lagu qori karo waa in la yiraahdo numberkaas duu 10 ka badan yahay waa inaan raacisaa kan kale ilaa uu ka gaaro 36,000 meel soo gaaro kan marka waxa la yiraahdaa integer ayaa la yiraahdaa dimkan wuxuu ku sheegayaa numberkaas uu ku leeyahay inta ka oran lahayd programmingka number 5 inta ka oran lahayd numberkaas sheegaysa plus ku dar ayaa leedahay kaas ayuu sameynaysaa saas awgeed ayuu sameeyaa waana very simple sida lagu barto haddii aad doonaysid inaad serious program aad noqotid marka kasoo deg kan automatic ayuu noogu yimid n sub n class halkan fadhiya marka programka ayaan qorayna wixii ugu horreeyay marka hadda waa muhiim inaad ogaatid waayo waxaan la hadlaynaa computerkaan la hadlaynaa qofka programmingka dadka qaarkood waxaa loo maleeya inuu waasho ayaa loo maleeya markuu program uu qorayo ama script ama text uu qorayo computerka ayuu la hadlaa marka sida loola hadlaya intusaya marka waxaan leeyahay if haddii computerkaan la hadlaya haddii combo box capital letter fiiri markaan taaftaba kan ayaa ii soo baxaya fiiri combo box yaasha ii soo baxay combo box 1 oo ha kii koowaad marka ha iloobin waxaan la hadlaynaa haddii aan ku noqdo designka meeshuu yahay waa kan if ayaan leeyahay kan combo box waa kan marka ha iloobin if ayaan leeyahay marka if combo box 1 ayaan leeyahay mogtahay dot aan la yidhaahdo selected item horu iga soo saaraya iska ilo waxaan qaladaadkan ku qoran anagaa saxin wax dhibaato ma lehe waxaad leedahay equals waxa yar kasi ko equals leh marka wuxuu ku leeyahay combo boxki koowaad haddii la doorto combo box 1 dot selected item ku dhex jira oo softwareka haddii la doorto equals waxay la mid tahay tusaale ahaan labadan bilaad u furaysa waxaan leedahay softwareka haddii la yidhaahdo Adobe oo taqaanaan CS4 master suite la yidhaahdo oo qaaliga aad taqaanaan oo kambaniyada ay soo iibsadaan markaas wuxuu ku leeyahay kasika wax yar then uu ku leeyahay haddii oo kaas la doorto sidan la doorto then kan ayaa tegaysaa hoos ayaa usoo degaysaa waxaad leedahay waxaan sameynaynaa wax la yidhaahdo combination a visible uu kusoo saaraya visible box wuxuu noqonayaa bisha fur 2 kan hadda ma fahmaysa laakiin programka markaan dhammeynaya ayaan si fiican fahansiinaya kasoo deg mar labaad waxaad leedahay keygene oo ahaa key generatorka numberka kan koowaad waayo waxaan sameynaynaa boqolaal keygene ayaan sameynaynaa hakadkan geli waxaad leedahay wuxuu noqonayaa kan ugu horeeya oo koowa marka waxaan sameynaa waa combo boxka selected item haddii la doorto oo magaciisa la yidhaha Adobe Master Suite kan hadduu yahay then visible 2gan marka dambe ayaa idin sheegi doonaa keygene-kana waa keygene-kii ugu horreeyay oo numberka ah marka adoon ku wareerin halkan aad joogtid waxaa samaysaa kan highlight ku samayso right click dheh copy dheh designkii ku noqo highlight dheh combo boxka falaartan sidaan u riix edit items dheh halkan geli stringiga meeshan uu kasoo dhisay geli waa isku wada mid okay dheh marka designkii ku laabo markii aan ku laabto kaas aan sameeyo haddana waxaan raacsinayaa mid kale waxaan leeyahay laba jeer ka deg haddii markii ugu horreysay waxaan weydiiyey if ayaan weydiiyey marka waxaan leeyahay else if haddii kale ayaan leeyahay haddii kale combo boxka combo box 1ka oo halkan ii yaala dot selected item isla sidii ayaan u leeyahay selected item hadduu ii soo baxay selected item equals uu yahay let's say PC tools waa softwareka magaciisa ah iloowin PC tools capital letter small letter iska ilaali laakiin kan waa softwareka dhibaato male internet security waa aad ayuu wanaagsan yahay 2010ka waad xiraysaa sidii oo kale ayaa samaynaysaa haddana waxaad leedahay then ka bacdi waxaad leedahay hadda ayaa inaa ogaataan laga yaabaa visible aragtidiisa ha noqoto waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay is yidhahdeen aragtidan maxay tahay inay fahmi waayeen oo is yidhahdaan this is very complicated laakiin ma ahan marka dambe aa fahmaysaan visible 1 ha ahaado kii hore 2 ayuu ahaa iyo keygene-ka key generatorkana wuxuu noqonaya ayaan leeyahay bishana u furaysaa numberkiisu inuu ahaado number 2
waa sii socdaa waa keyjinkii labaad aan samaynayno oo super keyjinka ku sameeyno wax yar ka siko sande okay dabcan 10,000 oo keyjin hortiina kuma sameynaya waxaan sameynayaa saddexda ugu horeysa ayaan sameynayaa sida u shaqeynayaan tusaya ka bacdi marka ay tuso waxaan sameynaynaa kuwa kale oo ku daraynaa sidaas ayayna wada shaqeynayaan ugu dambaystii isla sidii ayaa waxaan ku darayaa oon leeyahay halkan ayaan geynayaa else ayaan leeyahay f waa kan wax yar ka siko combo box 1 dot selected item saa automatically isina very simple waxay la mid tahay hadday la mid tahay waxaan leeyahay softwarekii kan marka waxaad u baahan tahay saa ujeedaan labadan bil inta ka xira intana waa ka furanta intana waa ka xiran tahay marka kan saan u fur waxaa leedahay softwareka saddexaad ayaan rabnaa muxuu noqonayaa softwareka saddexaad softwareka saddexaad waxaan ka dhigaynaa a software magac ayaan dooranaynaa waxaan leenahay magic software kale music capital letter small letter oo aan jirin ayaan isku dhex qasaa ujeedaa workshop oo aan la aqoonin magic music workshop haddii ay tahay oo versionka xataa waa lagu daraa si aadan ugu wareyn 8.0.2.1 haddii uu yahay kan iisoo xir hoos soo deg markaasaan waxaan leeyahay visible wuxuu noqonayaa maxaan ka dhignaa visiblekiisa kan koowaad waxaan ka dhignay 1 2 kan waxaan ka dhigaynaa 3 ayaan ka dhigaynaa visibleka sidii loo arko bisha iisoo xir marka dambe waxaa leedahay keyjinkii key generatorkii capital letters aan ka yareeyo keyjinka wuxuu noqonayaa dabcan numberkiisa ayaad u furaysaa halkan waxaan ka dhigayaa ku dheji kan waxaan leeyahay num bisha 3 ayuu noqonayaa dabcan waa kan marka sida aan u sameynay waxaan sameynay combo boxka ayaan la hadalnay isla kan waa combo boxkii wixii la doortaba kan kale ayaa la doorta marka caadiyan kan soo qaado waxaad leedahay copy designkii tag edit dhe isagana halkan soo geli kan hoosi soo geli waxaad tidhaahdaa okay dheh ku laabo kii ugu dambeeyey oo ah magic music shop copy dheh designka tag isla meeshii geli si isu wada arkaan ka bacdi hoos soo deg waxaad leedahay okay ayaa leedahay marka koodadkii meey dabcan koodadkii aan u baahana inaan sameyno hadda kan aan ku sameyno sababtoo ah kan keligiisa wuxuu ku shaqeynaya haba yaraatee ma jirto waa keliya visibilityga iyo waxaan intay ka yimaadeen marka wuxuu doonayaa in koodadkii markaa la geliyo oo lagu sameeyo marka waxaan sameynaynaa waxa la yidhahdaa private function ayaan sameynaynaa oo kan ka mid ah oo aan kusoo xirayno si aan usoo xirno oo softwareka dabcan hore ay u shaqeyso markii halkan aan marayo marka waxaan sameynayaa kan keyjinkii kan waan soo xiraynaa keyjinkii dabcan waxaan kusoo xiraynaa end if iyo waxaan kusoo xiraynaa hakadkan oo keyjinkii aan magaciisa aan ku qorayno waxaan xirayno dabcan waxaan xirayno waa inaan ogaanaa oo aan kusoo xirnaa magaciisu yahay aan kusoo xirnaa sidan ayaan kusoo xiraynaa waxaan leenahay key generator ayaan leenahay iyo waxaan soo xiraynaa oo ah numberkii aan soo xiraynaa iyo nsub kan kuma jiro dabcan classki weli nagama dhammaan annaga classkana waa socdaa marka sidaan ayuu noqonayaa marka keyjinkii numberkiisa ayaan bilaabaya si aan u geliyo sababtoo ah kuwaan magac kale ayaan sheegnay numberkii ama serialkii weli ma aanan sheegin marka waxaan sameynaya create garaynaya aan af ingiriisi af soomaali isku daray private waxaan sameynaya function oo mar walba ujeedaa saan ayuu kugu soo qoraa kugu soo fududeeya waxaan leeyahay key generator oo saan ah kan waa wada taqaanaan waxaan leeyahay by value halkan kusoo dar waxaan leeyahay x as integerkii oo taqaaneen waxyar hakadhe haddana by ku dar valkan ku darsan y x ayaan ku dhex sameynaya markaas ayaa fahmaysaa labadood y x waa inay ahaadaan as waa ii soo saaray oo ujeedaa integer kale integer kan san ayuu ugu soo saaray kanna bisha san ugu soo xir
okay marka kan aan sameeyo hoos ayaan ugu soo degayaa n function ayuu siinaya laakiin function kama welwelayo marka dambe ayaan samaysanayaa marka waxaan leeyahay select kan ugu horeeya case-kii aan dooranay oo ahaa kan kore oo ahaa case y hoos uga soo deg codeka ayaan qoraynaa markaa la socdo case 1 markuu doortan waxaad dooranaysaa ayaan leeyahay select dooro case x okay waxaan isticmaalaynaa kuwaan iska durjo waxba dhibaato ma leh meesha dambe ay tegi karaan caseski aan isticmaalaynay private function aan u isticmaalaynay oo kala duwanaa oo y-ga iyo x-ka ahaa oo codekana siina marka haddaa si fiican u fahmaysaan marka waxaan ku bilaabaynaa halkan case 0 case 0 markaasaan u samaysid waxaad leedahay text box ayaa soo degaysaa markaa waxaad leedahay text box 1 oo ah kan ugu horeeyo dot text mar hore ayaa aragtayna umalayna kan wuxuu la mid yahay marka waxaan gelinaynaa codekii loo isticmaalayaan gelinaynaa 1 2 3 4 5 6 oo inuu soo boodal rabay oo la isticmaalay kan dabcan teesaan u samayn laakiin kan realka ah marka dambe aan samaynaynaa saan ayaa u xiraysaa waa kasoo degaysaa marka hal text kale ayuu leeyahay marka waxaan leeyahay text box 2na dot text wuxuu la mid yahay waxaan waxba ku jirin ayuu la mid yahay marka waxaan waxba ku jirin sida loo sameeyaa waa ka shikanaysaa bilaa u furaysaa bilaa u xiraysaa marka kulligiisa waa wada samaynaynaa waa wada wadaynaa sanayaan u wada wadaynaa ilaa uu ka gaara meesha ugu dambayso oo ah in casekan aan samaynay iyo haddana aan ka degno aan samayno case kale aan samayno second case ayaan samaynaynaa caseka labaad muxuu ka bilaabanayaa case 1 dabcan kan wuxuu ahaa 0 ayuu ahaa kan 1 ayaan ka dhigaynaa waa ka soo degaysaa isla sidii uu shaqeeyaa same principle text waxaad leedahay box 1 dot text equals waxay la mid tahay numberka doonta ku qoranaysaa dabcan kii jiinka ahaa oo numberka ku shaqaynayay ayaa ku qoraysaa marka kan tijaabo ahaan si loo sameeyo idin baraya marka case 3 case 4 case 5 san ayaa loo wadaa dabcan ma doonay code kaliya hal mar inaan wada siiyo oo aan idin idhaahdo sidan ayuu u shaqeeyaa sii wad aan idin idhaahdo marka kaas waxba tari mayso marka waa sii wadaysaa ilaa aad ka gaartid meesha ugu dambayso oo ah functionka meesha ku samaynaysa functionka meesha ugu dambayso marka kan waa samaysay san ayaa u samaysay marka isagoo buuxan waa idin tusaya kan waa samaysay case 2 case 3 case 4 ayaa ku wadaysaa mar walbana waxaa muhiim ah in selectionkaaga uu dhammaado n select uu yidhaahdo marka kan sidan ayuu u sameeyey marka maxaa ku xigaya waxaa ku xigaya case 2 ayaa ku xigaysa case 2 muxuu noqonayaa case 2 wuxuu noqonayaa in kan case 2 ahaa marka pc toolskan internetka ah oo dabcan kan wuxuu ahaa 2009 ayuu waxba dhibaato ma laakiin 2010 as a test ayaan u sameynaynaa marka kan wuxuu noqday 1 2 ayuu noqday 3 mid kale 4 oo ku dari karnaa laakiin male magac male waxaana xasuus mudan inta software iyo serial kan kooda waa leeyahay laakiin kuwa waxaa jira name leh kuwa company leh marka kuwaas ayaan sameynaynaa hadda waxaan u sameynaynaa haddii aan tago designka waxaan sameynayaa something completely different tijaabo ayaan ku sameeyey marar badan markii designka aan ku sameeyey kan wuxuun usoo saarayaa si simple ayuu usoo saarayaa okay maxaan sameynaynaa very simple private function ayaan sameynaynaa private function oo la yidhaahdo visible box oo kore aan kusoo aragnay markii hore waxaa laga yaabaa inay istiraadeen visible box halkuu ka yimid laakiin kor ayuu ka yimid visible box by value oo kansana visibility as integer soo xir marka okay kan macnihiis muxuu yahay hadda ayaa si fiican fahmaysaa functionkan iska ilo hoos ka dhig hadda marka waxaan ka hadlaynaa aan sameyno waa designkan si fiican u fiirso kan waa combo box 1 text box 1 text box 2 text box 3 kuwaana waa label 1 2 3 4 marka indhaha si fiican u fur markaan shaqada fiican hadday bilaabanaysaa waxaan leeyahay if haddii ayaan leeyahay
visibility uu la mid yahay hal, then hadduu hal la mid yahay si fiican u fiiri aan ku laabto halkan visibilityga kan koowaad waxaan eri 2 kan labaad waxaan eri 1 marka si fiican indhaha ugu qaba kan ayaan ka hadlaynaa aan samaynaa hadda if visibility equals 1 then waxaan leeyahay text box 2 dot visible waxay ka siko equals waa sax waa inay tustaa haddaad si fiican u fahmaysaan marka waxaan leeyahay label automatically u saray ilan waa ujeedaay label 2 dot visible equals true iyo waxaan kaloo leeyahay level 3 dot visible mar walba in lagu daraa waxay ka siko equals waxaan leeyahay weli true ayaan leeyahay weli waa socotaa ma istaagin waxaan leeyahay marka a text box 3 dadka qaarkood waxaa laga yaabaa I have no idea macalinku wuxuu sameynaya laakiin hadda idin fahansiinaya visible equals waxaad leedahay false halkan iyo ugu dambaystii level 4 dot visible waxay ka siko equals waxaan leeyahay false again marka macnaheedu wuxuu yahay haddii visibility ay tahay hal oo ah kan hadduu yahay visibilityga 2 kan hadduu yahay kan halkan yaalla visibility hadduu hal yahay waxaan leeyahay text box ka labaad text box 1 waa kan 2 itus ayaan leeyahay haddii visibility still tahay hal level 2 visible iga dhig level 3 visible iga dhig text box 3 iyo level 4 waxaa ka dhigaysaa false oo ah haddii aan ku laabano kan iyo kan ha itusin ayaan leeyahay haddii kan la doortay uu yahay labo marka this is very interesting kasoo deg hal mar ayaan ku diraya inta kalena automatic ayaan u keenayaa else ayaan leeyahay haddii kan hoose ga deji else if haddii kale visibilityga equals 2 then hadday visibility tahay marka waxaan leeyahay text box dot visible equals false text box 2 dot visible equals 2 equals waxay noqonaysaa false ay noqonaysaa been ay noqonaysaa marka waxaan rabay halaan inaan fahansiiyo dabcan kan waa dheer tahay laakiin muhiimaddu waxay tahay haddii kan la arko if visibility equals 1 then text box dot visible equals true haddii level 2 dot visible equals true haddii kan la doorto marka waa ka duwanaanaysaa kan dabcan kan haddii visibility 2 uu yahay visibility 3 hadduu yahay marka waxaan sameynayaa softwarekii iyo scriptigii aan diyaariyey oo dhan oo aan doonay inaan fahansiiyo oo rasmiga ah oo downloadka ku samayn lahaydeen ayaan hadda kusoo shubayaa halkan markaan kusoo shubana si fiican ayaan isula fahmayna marka saa ujeedaan waa kusoo wada daray gebigooda 1 by 1 ayaan usoo geliyey waa sidii uu ahaa marka 1 2 kan 3 kan 4 waa kala duwan yihiin marka hadda ayay si fiican noo dhacaysaa maxay noogu dhacaysaa halkan hoose haddii aad tagtid meeshii aan ka bedelay koodkii oo dhan waan wada geliyey muhiimaddu waxay ahayd kan koodkii aan qoray oo ahaa visibilityga sidaan u ahaa marka hadda waxaan kood ah oo aan samaynay iyo kuwan aan wada gelinay say u shaqeeyaan saa u socotaan 3 kood oo kala duwan ayaan geliyey marka bal aan dhisno softwarekii waxaad leedahay debug halkan ama halkan ay ka tegi kartaa start debugan ayaa leedahay halkan ay ka bilaabaysaa debug markaan idhaahno waa noo sameeyey waa ujeedaan koodkeeni wax walba marka
saddexdii aan gelinay waxay ahaayeen Adobe Master Suite, PC Tools, iyo Magic Workshop kan ayuu ahaa. Okay, marka waxaan kala weydiinay waxaan idhi Adobe Master Suite haddii halkan aad ka eegtid hadda saanaan u eegno waxaan ka dhignay si fiican indhaha ugu qabo visibility-ga waa 2 macnaheedu waxay tahay waa inuu naga qariyaa level 3 waa inuu qariyaa a text box 2 waa inuu qariyaa level 4 waa inuu qariyaa text box 4 na waa inuu qariyaa haddii uu shaqaynayo. waxaan idhi haddii visibility ay tahay 2 aaway marka aan soo aadno visibility-ga hadduu uu yahay 2 waxaan leeyahay text box 2 visibility waa false ma jiro. level 2 ga waa visible, level 3 ga visible waa false. marka waxa kaliya oo la doonayo waa in la arkaa true kan ah level 2 ga iyo waxa la doonayaa visibility-ga inaan arno kaliya level 2 wixii ka soo baxa. okay, software-keeni may keygen-keeni waa kan level 2 ga kaliya waa inuu wax ka soo saaraa text box dusha hortiisa yaala waa inuu ka soo saaraa. dabcan kuma dhahay text box 2 na waa inay isoo saartaa kuma leh. waxaa ujeedaa kaliya halkan levelka wixii ku hoos yaala ii keen. okay, kan aan doorano Adobe CS Master. marka waa lagu dhaafi karaa dabcan kuwaana kuwada yaala, laakiin waxaan isniri xoogaa bal maskaxda ka fikiro xoogaa si uu qurux u yeesho waa inaad ka qarisaa kan sababtoo ah Adobe CS Master uma baahna company iyo name uma baahna. marka haddii aan idhahno generate waxaa ujeedaa waa qarsoomay sababtoo ah waxaa la qariyey intaan ayaa la qariyey. mar labaad koodadkii way socdaan, mar saddexaad. okay, marka waxaan leeyahay waxaan doonayaa PC Tools muxuu ahaa? PC Tools wuxuu ahaa visibility-giisa dushaan u tagno 2010 wuxuu ahaa inuu yahay visible 1 inuu yahay. okay, visible 1 muxuu yahay? halkan iigee if visibility 1 then a text box true saddex ayaa true ah oo ah text box 2 kan waa text box 1 text box 2 gan waa inuu soo galaa. okay, bal aan eegno kan haddii saan aan u eego aan idhaahdo generate maxaa dhacaya? dabcan horuu ka soo saaray namekii ayuu noo soo qaaday waxa aan noqday text box 2 visible true, label 2 oo kan ah true, waxa kaloo noqday level 3 na waa kan waa noqday kan ayuu soo saaray. okay, maxaa kaloo aan sameynay? waxaan sameynay Magic Music Workshop ayaan sameynay. Magic Music intaanan soo saarin kori hoos waa inaan noqonaa caawo dhan Magic Music. okay, Media Monkey ayaa ku bedelmay Magic Music, laakiin dhibaato male isaga laftigiisa ku jira. muhiimaddu waxay tahay Magic qoraalka kan halkan la geliyay unbuu isbedelaya, waxba dhibaato male. kan haddaa soo qaad hadda aan idhaahdo aan meesha geliyo isaga ayaa soo baxay, laakiin muhiimaddu waxay tahay 3gan inuu noo soo baxo. marka for the sake of argument waxaan sameynaa debugging waa joojinaynaa dadka inaysan ku wareerin. right click dhe copy soo dhe debugging maa ku socda maya halkan tag designka ku bedel asaga maxaaba la isku wareeraya. Magican ku bedel laftigiisa waxaan leedahay waxaan doonayaa kan meesha ku jira ayaan doonayaa waxaan ku bedelnay haddii halkan aan kusoo noqdo Media Monkey Gold ayaan kusoo bedelnay. marka qordhe software-ka marka bal aan tijaabino Media Monkey haddii aan idhaahdo waa wada furan yahay gebigiisa. generate haddaan idhaahdo waa qaldan yahay. sababta uu qaldan yahay kii hore ayuu raacay oo ah kan haddii aan saan idhaahdo waa shaqaynayaa kan haddaan saan idhaahdo ma shaqaynaya kan waxaa shaqaynaya PC Tools waa inuu kusoo baxaa saddexdan uu kusoo baxaa. marka waxaan sameynaynaa kiisi oo rasmiga ayaan ku celinaynaa marka hadda. okay, kiisi caadiga ah ayaan ku celiyey si aan u sameyno usoo wada saarno. marka qordhe waxaan ku noqonaynaa software-ka dhe Magic Music. markaan idhaahdo waa ujeedaan afartii ayuu noo soo saaray wuxuu qariyay male. Magic Workshop serialkiisa waa kan magacana waa Jack Sparrow oo Pirate Caribbean Pirate filimkii lalahay ayaa laga soo saaray. marka muhiimaddu waxay tahay in aad ogaatid kala bedelka uu kala bedelayo oo command ayaa u sheegaya midkii aad dooratid. dabcan waa ku wada dhaafi kartaa gebigooda inaad tiraahdid ma doonaya kan inaad tiraahdid oo ku wada dhaafi kartaa waxaad oran kartaa I want this one kan inuu la joogo mar walba wax ku yeelaan, laakiin waa laga fiican yahay kan wax ku qoran inay kusoo baxaan.
marka keygenka backgroundkiisa hadii aan eegno dhinaca kale wax walba way ku jiraan isla sida ay u socdaa waa ujeedaa it else if combination box selected item uu yahay zonal arm then visible box waa 2 sababtoo ah wuxuu kaliya uu leeyahay waa 2gan visible box mar walbana kan ayaa raacaysaa visible boxiga halkan yaala ayaa raacaysaa kan combinationka inta aan ku qorno inta badan keygenka laguma qoro laakiin waxaan jiray mataqaana xogaa hasii yeesho hasii macaanada ayaan jiray marka halkan ay ka soo raacaysaa iyo ugu dambeynta uu ku leeyahay visibility day 4 ay tahay then text box visible true false ugu dambeeya marka functionkan kulay waa wada fahmi kartaan keygenada ku jiraan waxaan sameynayaa a download option ayaa idinku sameynaya oo ku sii daran kartaan ku sii dari kartaan ilaa aad ka gaartaan 100 aad ka gaartaan ilaa iyo 35 ayaa ku jirta daan sameeyay halkan aan ku sameeyay iyo ugu dambeyntii waxa muhiim ah inaad sidoo yahay raacid halkan ku soo xirtid waxa kale oo rabay inaan tuso in halkan meesha ugu dambaysan aan ku qoray qoraalkan sidan ah private sub button 2 ga ah button 2 ga waa kan kii hore waan soo arnay button 2 gan oo exit ka ah inaan kan ku soo sameynay sababtoo ah waxaan ka xirnay meelihii dusha oo laga xiray oo sidaan looga xiray ayaan ka soo xirnay marka saas weed waxaan ku soo qornay halkan private sub button ka saan ah click hadii la siiyo maxaa dhacaya if users hadii isticmaalaha want to cancel hadii uu inuu xiro doonayo exit uu leeyahay close and return with a cancel laakiin markaad xiraysid message waa inuu ku siiyaa oo yiraahdaa are you sure you want to exit hadii aad tiraahdo kale ma hubtaa ma ka bixi kartaa aad ku qortid halkan ama aad ka sii basay luqadarta ay ku qori kartaa inta u dhaxaysa boxka ama message-ka ku qoraysa marka anagu waxaan ku dhaafaynaa sidiisa no ayaan leeyahay sidiisa ayaan ku dhaafaynaa waxaan leeyahay if messagebox.show are you want to exit markuu yiraahdo exit ay ku qoran tahay message box wuxuu ku keenayaa yes or no icon ay ku soo baxaya kaasoo kule default button kaas wuxuu yahay window a function ka wuxuu noqonayaa inaad u sheegtid waan ka baxay message-kii qoraalna u soo saartid qoraalkaasoo kule keygenkan waxaa sameeyey hebel ayaa sameeyey oo iska leh website-ka marka aan tijaabino aan qorno haddii aan yidhaahdo ka bax exit wuxuu leeyahay are you sure you want to exit oo ah qoraalkii halkan yaalay waa af soomaaliyeyn kartaa afka danta ay qori kartaa are you sure you want to exit markuu yiraahdo exit-kiina waa kan waa soo raacay marka wuxuu ku leeyahay message-ka u soo saar button-ka option-kan oo ah yes or no u soo saar ayuu leeyahay dabcan maya iyo haa kuma qori kara kan haddii kale wuxuu diidayaa qoraalka programka uu diidaya markaas sana yiraahdo wuxuu yidhi horaha ka xirna waxaa samaysaa message waa inay soo baxdaa ayuu leeyahay window form ah waa inay soo baxdaa oo leh this super keygen is created and written by Abdinasir Ismail yes markaan yiraahdo wuxuu ku soo saaraya this keygen is created and written by Abdinasir Ismail off markuu yiraahdo off halkan soo deg ayuu leeyahay soo deg new line of visual basic samee ayuu ku leeyahay waxaad ku qortaa sologroups.com okay ayaan leeyahay waana kaa saaraya ujeedaa marka kuwan si fiican u sii raaca waxaan idin sameynayaa download ayaa keygenka idinku sameynaya marka idin kaligiin isticmaala qof kale ha u sheegina sababtoo ah macalinka ma dooni in la xiro haddii la xirana idinka xabsiga lacag igu keeni doona saan filayo marka casharkii super keygensi loogu sameeyey sida loo sameeyo halkan ayaan ka baxayna background waxaad doonto ku samayso laakiin quality ha ahaado mar walba sidan quality u ahaado haddii kale uu halaabaya ka bacdi marka kan samaysid backgroundka xataa waxaad u samayn kartaa in aad ku samaysid key oo kale u samaysid ayaa ka dhigi kartaa marka intaan ka bixin waxaan kaloo idin tusi lahaa in halkan aad gashid oo programka uu ku jiro halkan my document ayuu galaa projectiga waxaad u jeedaa Visual Studio Visual Basic isku meel ayay galaan halkan ayaa sii galaysaa project ayaad leedahay waxyaalo badan ayaa ku jira aan ku sameynay kan marka halkan ayuu wuxuu ku jiraa dhinaca Visual Basic ayuu ku jiraa marka waxay ku xiran tahay meeshii adiga aad gelisay ay ku xiran tahay projectiga marka Visual Basic inuu ku jiro ayaa laga yaabaa meeshii adiga safe ku tiraahdid save as ama save all aad tiraahdid halkan ayuu galayaa ujeedaa users training Visual Studio
users training visual studio. Okay, users training visual studio meeshaasaan gelaynaa oo halkan aan ka gelaynaa users training visual studio meelahan ayuu ku jiraa marka waa inaan helnaa document dhexdiisa ayuu ku jiraa visual studio project waa kan Solar Super Kitchen markaa furtid kan ayaa sii furaysaa binkan ayaa furaysaa debug ayaad furaysaa waa kan halkan ayuu ku yaala marka kan backgroundka waa in bedeshaa kiina ku bedeshaa double click ku samee waa ku diyaar qofka doonta ayaa u diri kartaa isagoo diyaar laakiin dabcan kuwii oo dhan waa inaad ku wada dartaa kuwaan oo dhan saa ugu daraysin kule idinkuma celinaya waa idin tusay right click ayaad leedahay waa ku daraysaa marka kuwan sidaan idinku sheegay horay ka shaqaynayaan ujeeda kuwii dadku ay isu bedelayaan kan isaga bax marka waxa muhiim ah in aad ku dartid oo aadan sidaa kaga tagin designka inta ku laabatid mid one by one aa usoo qaadid kan oo kale waxaad leedahay ISO makerka sidaan usoo qaad ha ku qorin haddii kale qalad ayaa gelaysaa copy dheh designka tag highlight ka dhig dushiisa tag sidaan u riix edit dheh halkan alphabetical order isku xiji a b c isku xiji halkan soo dhig markii aad qortid haddii waxba ay sax yihiin horuu kaaga shaqaynaya magic ISO hadduu jiro waa kana ujeedaa horuu ka soo saaray marka casharkii halkan ayaan ku dhammaynaynaa waxaadan fahmin kolley emailka waa nagu soo weydiin kartaan anytime ayaan kaga soo jawaabaynaa waa info@solargroups.com registrationka sameeya insha allah casharo aad u wanaagsan iyo bakhtiyaa nasiib ama shart khatar ahna waa soo socdaa anigoo cabdinaasir intaan hawada ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu